shariif xasan wuxuu ahaa dalaal aan cin ee siyaasadda Soomaaliya 15 sano waxa uu qaatay dhowr shaar uu ku gaaray dana shakhsi ah wuxuu dubdhaxad u noqday qalalaasooyin siyaasadeed dagaalo dhacay dawladda la riday iyo qorshayaal lagu hagardaameynayay dib u eegleelida qarnimada dalka wuxuu noqday wasiirka maaliyadda isagoo aanan dhigan dugsi sare أنا واحد بدل ما صوب برانين وهذا ما كله جامعة فلانة كصوبها لكن سكول دوكسي قراني سكول هاسي صور دكتي marka la waa musharax madaxweyne koonfur galbeed haddaba ma mudan yahay in dib loo doorto afartii sano ee uu xilka hayay wuxuu ku guul daraystay dhammaan ballanqaadyadii uu hore u sameeyay la dagaalanka al-shabaab iyo amni ku soo dabaalida deegaanadaasi waa caqabadaha ugu waaweyn ee haysta bulshada koonfur galbeed mana jirto muddadii uu shariif xilka hayay wax horumar ah oo laga gaaray xaaladahan wadada dheer ee xiriirisa muqdisho iyo baydhabo waa isha dhaqaale ee bulshada ku nool deegaanadaasi muddana waxa ay ka caagan tahay isticmaalka gaadiidka dadweynaha cabsi amni darro darteed waxaana dadweynuhu isticmaalka wadadaasi ka doorbidayaan ku safrida diyaaradaha oo wax badan ka qaalisan waxa ku horgudban dana dhaqaale oo uu shariif xasan leeyahay diyaaradda kaliya ee bulshada isticmaasho misana maalin walba gaarta deegaanadaas waxa iska leh shariif xasan shaqaadan diyaaraddan ayaa waxa ay leedahay suuq aad u weyn waana marinka kaliya ee baydhabo iyo muqdisho waxaana laga helaa lacag far badan oo si toos ah ugu dhacda jeebka shariif xasan wadada isku xiriirisa baydhabo iyo muqdisho oo amnigeeda wax laga qabto waxa ay xayiri kartaa oo ay hoos u dhigi kartaa ganacsiga diyaaraddaas waxbarashada iyo horumarinta wacyiga guud ee deegaanka qorshahaba uguma aysan jirin shariif waxaana siyaasadiisa sal u ah jahli golaha wasiirada iyo shaqaalaha madaxtooyada shariif xasan waxa uu u xushay dad aqoon ahaan liita oo isaga inay adeecaan una adeegaan lagu soo xulay waxaana taasi ay keentay in maamulka iyo dawladda deegaankaba noqoto mid shariifku leeyahay oo uu boorso ku sito intii uu siyaasadda ku jiray waxa uu hoos u dhigay qiyamka siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfur galbeed isagoo hadba mowqifkooda u wiciya halka dantiisa gaarka ah ay jirto taas oo hoos u dhigtay tayada waxqabadka maamulka koonfur galbeed deegaanka ayaa ah mid aad u nugul Soomaaliya waxa ka dhacay abaaro dad iyo dunyo ku baaba'een intuu shariif xasan ka ahaa madaxweynaha maamulkaasina gacan kama geysan ka hortagga abaaraha iyo badbaadinta shacabka deegaanka balse si taa ka duwan wuxuu ka macaashay gurmadka iyo mucaawanada dunida u fiisay waxaa jiray eedeymo loo jeediyay maamulka oo ahaa musuqmaasuq lagu sameeyay deeqaha soo gaaray deegaanka 4 sano oo uu xilka hayay wuxuu inta badan ka maqnaa maamulka koonfur galbeed waxa uu ku mashquulsanaa mooshinno iyo hagardaamooyin uu kaga macaashay malaayiin dollar waxaa fududeeyay intaa inuu siyaasadda ku jiro bulshada koonfur galbeedna uu hogaamiyo nidaamkii Itoobiya ka jiray hadda arrinka isbedel baa ku yimid shariif waa aqoon siyaasadeed waxaana saadaasha ay tahay in la joogo xilligii bulshada koonfur galbeed ka gudbi lahayd jidgooyadiisa shariif xasan waxa uu ka shaqaystay koonfur galbeed ee uma shaqayn